wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa ardada Soomaalida ay isku diyaarinaya imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka waxay la wadaagaysaa macluumaad la xiriira hanaanka sanadkan loo qaadayo imtixaanaadka iyo waxyaabaha uga duwan yahay sanadyadii hore. haddaba sanadkan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa imtixaanaadka ku soo kordhisay qaab cusub oo loo qaadayo taasoo ah in arday walba oo imtixaanka galaya uu helayo 2 buug oo kala ah mid ay ku qoran yihiin su'aalaha imtixaanka iyo mid loogu talagalay in ardaygu uu ku qoro jawaabaha laga doonayo. Cabdullaahi Cumar oo la taliye sare ee wasaaradda waxbarashada ayaa si sharaxaya labadani buug iyo sida loo doonayo in ardaygu uu isticmaalo. imtixaanka sanadkan sidii hore loo qaadi jiray uu ka duwan yahay. sanadkii hore imtixaanku wuxuu ahaan jiray sidan ayuu qoraa jawaabta iyo su'aashu hal meel ay ku ooli jireen. si fiican u fiirsa hadda. jawaabta iyo su'aashu berigii hore hal meel ayay ku ooli jireen. hadda way kala duwan tahay arrintu. su'aaluhu waxay ku yaalaan warqadan, jawaabahana waxaad ku qoraysaa middan. aan kugu celiyo mar kale. su'aaluhu waxay ku yaalaan halkan, maadadan waa geography. su'aalihii halkan ay ku yaalaan waad aragtaa. jawaabuhuna waxay ku yaalaan, waxaad ku qoraysaa halkan. saaran ku siinaya qaybta hore geography-ga oo English ku qoran waa multiple choice. su'aasha koowaad waxa weeye Soomaaliya has a land area of about, dhulka Soomaaliya ay leedahay ayaa la fiirinaya inta uu yahay waa A B C. marka hadda waxaan qaadanay inay tahay 637,657 kilometer square inay Soomaaliya tahay oo A ah. su-aasha markaad ka jawaabayso buuggii baad haysataa. waa su-aasha koowaad. waxaad dhahaysaa su-aasha koowaad waa taas su-aasha koowaad iyo A waad aragtaa. su-aasha koowaad iyo A baad halkaa ku qoraysaa. halkan waxba ku qori maysid. tusaale kale meeshii ugu horreysay oo galley lagu beeray ama where was maize first grown waxaa ku qoran 4 ikhtiyaar in USA, Russia, Mexico iyo Brazil. jawaabtu waxaa weeye markaas Mexico. halkan marka waxaad ku qoraysaa jawaabta labaad oo halkan kaga soo baxaysa iyo C oo ah Mexico. marka halkan waxba ku qori maysid. qaybta labaadna sidaas oo kale hadda waxaan ku tusayaa qaybta labaad oo aan ahayn multiple choice-ka. waatan waa structured questions. define agriculture marka lagu yidhaahdo oo jawaabtu maxay tahay cilmiga beeruhu waxa uu yahay tacriifta ama qeexitaanka ama definitionka agriculture iyo waxaad ku qoraysaa halkan ayaad ku qoraysaa. su-aasha numberkeeda ee halkan ku qori, jawaabtana halkaa ayaad ku qori. marka yaanay ku dhaafin marna arrinkaasi oo ah in jawaabta iyo su-aasha aan isku qasin. kan halkan uu ka oolahayaa jawaabta oo wadata numberkii su-aasha iyo xarafkii jawaabta. numberkii su-aasha koowaad xarafkii aad doorteen halkaasuu ahaa. su-aalaha dheerdheer sida kuwa curiska ah sidoo kale waxaad samaynaysaa maalan su-aasha waxay noqonaysaa su-aasha 5aad. halkan waxaad ku qoraysaa taariikhdii SYL. taariikhda SYL markaad qoraysid su-aasha koowaad su-aasha 5aad bay ahayd. halka ayaad ku qoraysaa essayga taariikhda SYL markaad ku qoraysaa iyadoo qoraaba ayaad ku qoraysaa. isku soo celceli. sanadkan waxaa cusub su-aalo gaar u socda iyo jawaabo gaar u socda. marka waxaad isku dayeysaa
in aad jawaabaha raaciso meesha loogu talagalay. intaana ka bixin hadalka waxaan kusoo gunaanadayaa afartii arrimood aan soo sheegay oon idiin dul maro. midda koowaad waxaa weeye ahmiyadda ay leedahay inaad isdiyaarisaan iyo inaad ilahi subxana wa taala tala saarataan iyo inaad ogaataan imtixaankani inuu idinka weyn yahay ummadoo dhan uu saameynayo. midda labaadna waxaa weeye inaad ogaataan waxyaabaha la ogol yahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn imtixaanka marka lasoo galo. mid saddexaadna waxaa weeye inaad aragtaan arrinka la xiriira imtixaankii su-aalihiisii iyo jawaabihiisii inay kala duwan yihiin. waxaa jira talooyin muhiim u ah arday walba oo doonaya inuu ka qayb galo imtixaankan si ugu fududaato in ardayda ay si wanaagsan oo aan walwal iyo cabsi lahayn ugu fadhiistaan qorista imtixaanaadka. imtixaanku iyo hawsha adduunka la qabta sidoodaba kama soo hadho laba arrimood kama soo hadho. arrinka koowaad waxaa weeye isdiyaarin. waxaad haysatay haddana wakti yari kuu hadhay waqti fiicanaad haysatay inaad isdiyaariso ayaa loo baahan yahay. si kastood u carcararto haddii aadan diyaar ahayn imtixaan ku guulaysan maysid. marka isku day waktiga kuu haray maanta inaad si fiican u qaabayso oo aada isu diyaariso imtixaanka oo aada la joogto dadka waxbaranhaya ee ardada ah, macallimiinta aada su-aalo weydiiso, imtixaanaadkii hore aada fiiriso oo aada cibro ku qaadato. arrinka labaad waxaa weeye oo aadan ka fursanhaynin kalsoonida ugu badanna waxaa laga helaa qofka ilahay inu tala saarto. ilahi subxana tala saarto waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu. ilahi baa kugu filan. haddii aada dadaasho adugu kalsoonina aada la timaado shaki waxaan lahayn ilaahi subxaana wa tacaala uu kuu fududaynaya imtixaanka. arrintaa hordhici runtii waa muhiim. waxaana arkaa inaad isku daydaan inaad raacdaan. waxaan kaloo arday u sheegi lahaa taa markaan kasoo gudbo arrinka labaad oo ah talooyin la xiriira imtixaanka qaadashadiisa. talada koowaad waxaa weeye imtixaanka marka aada imanayso waa inaad la timaadaa aqoonsigaagii. adigoo aan aqoonsi wadanin imtixaanka xaruntiisa ha imanin. waxay u badan tahay inaan lagu ogolaanin. marka inta aadan imtixaanka gelin hubso aqoonsigaaga oo sawirkaaga wata inaad haysato. arrinka labaad waqti fiican isa sii. adoo cararahayo oo dhidid kaa daadanhayo oo daqiiqada ay ku dhaafeen imtixaan si fiican u geli maysid. waqti fiican soo bax adiga oo degan oon carcararaynin oo wax kas diyaar kuu yihiin oo qalinkaagii iyo qalin qorahaagii iyo wixii kalead u baahna wadatid imow. arrinka saddexaad ka fogow wax kasta oo keeni kara shaki inaad qishaysa ah. la soco macallimiinta ku ilaalinhaya iyo kormeerayaashu waqti ay ku sameeyaan baaritaan ma hayaan. shaki ay kaaga shakiyeen bay imtixaan kaaga caydhin karaan. marka ha soo qaadanin boorso, jacket, cimaamada isku duuduubto, ul, waxyaabahaas aan loo baahnayn ha keenin. maxaa yeelay waqti lama hayo arrinkaa lagu hubsado inaad imtixaanada qisha doonaysay iyo in kale. arrinka afraad iska ilaali inaad nuuxnuuxsato, meela fiirfiiriso, aada isku daydo kale inaad caawiso. xataa kursi haddaad qof kale inaad u qaado ma aha. qofku wax ka dhacayna ha u qaadin. marka dhaqdhaqaaq aan loo baahnayn imtixaanka intaad ku jirtid ha samaynin. arrinka kaa ku xiga waxaa weeyaan isaguna laguma ogolo wax kasta oo wax qoraala inaad la soo gasho meesha. qoraal ama ha noqdo ha ku saabsanaada imtixaanka ama yaanu ku saabsanaanayna wax qoran meesha la soo geli maysid. waxaa kaloo xusuusataa in telefoonada mobaylada ah ee la soo qaato aan la ogolayn in lala soo galo xarunta imtixaanka. waa la sheegay sano horena, sanadkana waa lagu celinhayaa mobaylo in lala soo galo xarunta imtixaanka lama ogolo. haddii lagugu qabtana waxaa u badan tahay in tallaabo lagaa qaado. deganaanshaha xarunta iyo fasalka imtixaanka lagu qaadahayo qeyb weyn baad ka tahay. marka adigoo aamusan oo degan oo si xilkaasnima u socda kalaska soo gal. midda kale oo ugu dambeysa waxaa weeye inaad isku daydo inaadan kicin ugu yaraan 40 daqiiqo ugu horeeya.
40 daqiiqo ugu horeeya imtixaanka markuu bilowdo ilaa 40 daqiiqo laga gaadhayo qofna inuu kaco ama musqul aado ama wuu dhameeyey hadduu yidhaahdo laga ogolaado ma jirto. marka isku day intaas inaad joogto. taa markaan ka soo baxo waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego digniin yar oo la xidhiidha imtixaanka diyaarintiisa. midi waa soo daahitaanka. haddii waqtiga imtixaankaad ka soo daahdo la soco askarta albaabka joogta ay ku soo dayin maayaan. hadday ku soo daayaanna kormeerayaashu kuu ogolaan maayaan gudaha inaad gasho. marka waqtiga imtixaanka loogu talagalay ka hor iskeen. midda labaad, haddii qish lagaga shakiyo ma aha in la helo. haddii qish lagaga shakiyo waxaa suuragal ah maadadaa aad ku jirtay in eber laguu saaro. waxaa kaloo suuragal ah maadada iyo maadada ku xigta isla maalinkaas haddaad maanta laba maado qaadanaysid labadaba maalin in lagaa eriyo oo imtixaanka halka khasaare uu kaa soo gaadho. waxaa kaloo suuragal ah in imtixaanka dhanba lagaa joojiyo. marka arrimo kale oo imtixaanka la xiriira la fiiriyo in lagaa joojiyo. marka waxaad ku soo daalaysay ood ku soo rafaadaysay intaas iyaysan kaagaga khasaarin waxaad u malaynhaysa inaad helayso. midna aan kuu sheego, waqti aan dheerayn waxaad maqli doontaa dad dhahaya imtixaan baan helay iyo jawaabo meel ka soo helay oo laga yaabo inay lacag ku raadinhayaan ama saaxiibtinimo ku raadinhayaan. arrintaasi waa been, yaan lagula goynin. imtixaan 5 sano ka hor la sameeyey oo lasoo sawiray waxba kuu qaban mahayo. marka taas digniin ayaan kaa siinayaa. intaa markaan ka baxo waxaan jeclahay